السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناسة دمانتين با أحمد باشا وقت هره waxa uu ahaa wariye warar barnaamijyo iyo warbixino la wadaaga bulshadiisa laakiin hadda waa dhakhtar ka shaqeeya baarista dhiiga waa halkan goobta uu ka shaqeeyo Axmed ee uu ku baaro dhiiga Axmed ayaa ah wariye isku bedelay doctor waxana uu noo sharxi doonaa qalabkan uu dhiiga ku baaro waxyaalaha uu ka kooban yahay wallahi de shaybaarka wad garanaysaa waa qof dhakhtar soo diray oo shaybaar uu soo qoray dhakhtarka waraaqda uu soo qoray shaybaarku soo qorin badeegisa waxa dhakhtarku soo qoray ayuun baa la baaraa way farbadeen yurin baa la baaraa stool baa la baaraa dhiig baa la baaraa way farbadeen waxyaabaha qofka laga baaraa inta badan waxa la isticmaalaa qalab way kala duwan yihiin imanka yurin oo kale marka la isticmaalayo microscope-ka la isticmaalaa hadii serology oo kale la sameeyo kits iyo testiya ayaa la isticmaalaa marka way ku kala duwan yihiin kolba qalab la isticmaalaya berga hore laabku wuxuu ahaan jiray qaab manual ah laakiin hadda intiisa badan wuxuu isku soo bedelay qaab automatic oo mashiinkan uu waxaad geliso oo isagu soo saaro wallahi labadaba horta waa laba mihnadood oo bulshada loogu adeego xaqiiqatan markaan ka hadlayno labada mihnadood midna ma aha wax dhaqaale laga sameeyo ama dhaqaale laga dayo labada waa laba mihnadood oo bulshada loogu adeego saxafadan waxaad ugu adeegaysiin kuwaan codka lahayn aad codkooda meel gaarsiiso caafimaadkana waa saas leeg qof waayay inuu baahi caafimaad uu u tago goob ugu dhow ama dhakhtar awood waayay inuu tago ayaad isagana caawinaysaa labadaba de waa laba mihnadood ilaahay agtiisa wax laga helayo labaduna ma laba dhaqaale laga sameeyo Cabdirxiin daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid qodobada warka ugu doorka roonaha qiimaha ku soo dhawaada isagoo fidsan wallahi way kala duwan yihiin farqiga u dhaxeeya laga yaabaa kan inuu waqti badan qaato oo tusaale ahaan marka saxaafada baranayso kale laga yaabaa in aad 6 bilood ku diyaarso certificate laakiin mihnada shaybaarka waqti badan bay qaadataa muddo ku dhow 4 sano waan imka sanadka afraad baan ku jirnaa marka de kulli waad garanaysaa farqiga u dhaxeeya muddo 6 bilood weeye midna 4 sanadood wana si kala duwan yihiin oo kan waa wax qof bulsho lagu adeegayo oo la doonayo in takhasuskiisa yeelato oo aan waxba khaldin oo natiijo sax ah ayaa laga sugayaa mar walba intaas farqiga u dhaxeeya Cabdirxiin wallahi Cabdirxiin oo xaqiiqatan marka la eego inay mihnadiisu qarsoontii baan ahayo laga yaabaa in toddobaadadii ugu dambeeyay in ay dadku ogaadaan inta asxaabtanahay hore ay ogaayeen laakiin inta badan saaxiibadii kale ay ugu ogaa mihnada badii ma oga insha Allah inay ogaadaan baan jecelahay marka muuqaalka maanta ay daawadaan dad badan oo Soomaaliya ayaa aaminsan in wariyuhu ka shaqeeyo soo gudbinta war dhacay oo kaliya laakiin waxa jira wariyaal badan oo ku shaqeeya shaqooyin kala duwan oo xirfadda warbaahinta ahayn maadaama dhaqaalaha xarumaha warbaahineed ay u shaqeeyaan aanu ku fillayn Cabdirxiin Axmed wararka telefishinka bulsho Hargeysa